asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Daalaca News Channel. Daawadayaal meel kastoo joogtiin waxay dalaynaa kulan wanaagsan. Xubin wareedkan waxaynu ku soo qaadanaynaa dowladaha Soomaaliya iyo Uganda oo heshiis faham kala seexad doona ku aadan tababarka ciidanka Soomaaliya. wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe iyo wasiirka dowlaha difaaca ee dalka Uganda Charles Okello Ingola ayaa la sheegay in isbuucan yeesheen kulan ay kaga hadleen xoojinta xiriirka difaaca ee labada dal. shabakada wararka ee Chim Report ee dalka Uganda ayaa qortay inay labada mas'uul isla qaateen inay wada saxiixdaan heshiis isfaham MOU oo dhaba u xaari doona inay ciidanka Uganda tababar siiyaan ciidanka Soomaaliya sida ay militariga Mareykanka iyo Turkiga u tababaraan ciidanka Soomaaliya. ku-xigeenka afhayeenka ciidanka difaaca Uganda ninka lagu magacaabo Colonel Deo Akiki waxa uu sheegay inay labada wasiir ka wada xaajoodeen isla markaana ku heshiiyeen baahida loo qabo inay kala sixdaan heshiis isfahamka ee labada dal MOU si abaabul loogu galo inay ciidanka Uganda taageero dheeraada siiyaan ciidanka Soomaaliya gaar ahaan dhismaha iyo xoojinta awoodda ciidanka qaranka ee Soomaaliya. labada wasiir waxay kaloo ku heshiiyeen baa la yiri inay wada saxiixdaan abaabul cusub kaasi oo ogolaanaya in ciidanka Uganda taageero dheeraada siiyaan xoojinta awoodda ciidanka Soomaaliya si ay u qaadaan mas'uuliyadda ammaanka ee qaranka Soomaaliya. dhinaca kale danjiraha Uganda u jooga Soomaaliya Ambassador Nathan Mugisha waxa uu dhawaan ka digay inaysan ciidanka Soomaaliya weli si buuxda ugu diyaargaroobin ama ugu diyaarsaneen inay la wareegaan mas'uuliyadda buuxda ee ammaanka dalkooda. si kastaba ha ahaatee ciidanka howlgalka AMISOM ayaa lagu wadaa inay ciidanka qaranka Soomaaliya ku wareejiyaan mas'uuliyadda ammaanka ee Soomaaliya markii la gaaro sanadka 2021 waxaana haatan socota dhimista ciidankaasi iyadoo la filayo in 1000 askari ay dhawaan dib ugu laabtaan dalalkooda. daawadayaal xubinteena warka waa naga intaa waxaad kala socoteen Daalaca News Channel waana ku mahadsantiin daawashadiina.